السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي اسكو سو نقد وناكسن ومركلة iyo maandeeq caanood asxaabay maanta sida hore ogtay channelka wuxuu ku saabsan family care, skin care iyo hair care mar walba waa inay sheegaa. Sida hore kugu sheegaba wixii la isku dhex wada waaye maanta qiso cajiib ah la kulmay. Horta dad badan ay iga soo codsadeen in qiso inta iiga sheekeeyaan aan qisadii aan la bahalka sheegay dadka la sheer gareeyo. laakiin haddana ilaahay amarkiis aniga waxaan nasiib u leeyahay haddaan maanta meel soo istaago ama snap ha ahaato ama youtube ha ahaato ama tiktok ha ahaato haddaan inta meel soo istaago aan hadlo qof walba xisaabo isku dhufsanaya. Yani qof walba yani dadka marka yani social media ku jirtid waxba soo deynaysaa wixii markaa soo ilaahay amarkiis qof walba wuxuu leeyahay anaa iga waday أنا تاسع نصيب ولا يا ما أقنع تدخين إلى مدينة إن كلاته مركز ترتد مركز قصوين كواكر وركسدا إن أن بحالك إيشك أن سوداي أم أن جدبيو مركز قبل أن قصير إلى وذاكتي لكن قصة أو كمان ما أهم أو إلهكم مدرنا واحد جرت قصوين قاردتك يكون وذاك يعني حتى أنا وحيابها قار إسامين كوجيا لنا يعني أما أديك هرك وصاد عين أما قف يكصاد عين على أركتي marka saas darteed marka aniga mar walba waxaan isku dayaa qisooyinka inaan ka wareegsado laakiin waxaan isku dayaa inaan xogaa yar ka soo qaato anoo qofkii aan rabin inaan dhaho qisadaadan kama sheekeyn karo. Marka maanta gabadhan waxay sheegaysaa waxay ka cabanaysaa horta aabaheed waxay kaloo ka cabanaysaa dhibaatooyinka waxay leedahay dhibaatooyinka oo yani aabaha iyo hooyada kala taga oo kala taga dhibaatooyinka ay kala kulmaan ilmaha ay kala kulmaan waxyaas ka cabanaysaa waa gabadh aad u yar tahay. Marka gabadhan qisadeeda qiso oo familiar oo agtaa yani qiso oo ma ahan oo igu cusub ma ahan yani gabadha inay ii sheegto igu cusub tahay laakiin waa qisooyin caadi ah macnay waxa laga yaabaa in aan igu soo dhacday waxa laga yaabaa qof kale inay ku dhacday dad badan ay ku dhacday hadda gabadha hadda yartaan lagu dilay Nairobi fahima xataa way ku dhacday qisadaas camal exactly same qiso camal ku dhacday u eg. Waxay leedahay gabadhan aniga oo aabahay wuxuu hore u soo dhalay tiri 6 gabdhood markuu hore u soo dhalay 6 gabdhood hooyadoodu ku furay maadaama ay gabdho ay dhashay hooyaday guursaday tii hooyaday markuu guursaday hooyaday wuxuu yiri hadaa gabar dhashid waa ku furaya sidii aan ku dhashay tii marka aniga dhashay aabay hooyaday way kala tageen tii maadaama uu aniga uu ahaa sharti dalaaq uu ahaa hadii aan dhasho inaan hooyaday la furi doono saas markii hooyaday loo furay waxay tii hooyaday kala tagnay aniga hooyo iyo aabay kala tageen aniga hooyaday baa i haysatay dabcan aabe waa iska haajiray meesha sidii hooyada ku furay dibdama ima soo fiirin bay tiri dibdama maadaama ii soo fiirin way tagay gabdhihii kale laakiin hooyadoodu way dhimatay hooyada marka maadaama ay dhimatay dadkii ehelkii oo adeeryaal baa soo wata marka aaba ayaa wax gabdhihii haystay oo asaga marka hadda ani saas aqoon isku ma lihi laakiin gabdhaha waan yani magacyadooda iyo meeshay ku nool yihiin waan ka warhayaa. Marka waxay tiri aniga hooyaday baa i soo korsatay ree adeer waxba kama aqoonin ree aabana waxba kama aqoonin. marka waxay leedahay qisadiisa u dhigayso waxay leedahay aabahay markii aan soo yara qaan gaaray ayaan waxaan bilaabay inaan raasado sida ognahay ba gabdhaha aad u aaba jecel yihiin wallahi hadaa ogaan lahayd sida gabdhaha aabahood u jecel yihiin nin walba wuxuu dhihi lahaa wuxuu ku hamin lahaa inuu gabar dhalo. Ana been ku sheegay aniga qaasatan aniga horta aad aan aaba jeclaa inkastoo hadda markaa weynaaday aabahay yani oo aan soo kala dheeraanay laakiin marka hore aniga aabahay ma la soo korin aniga hooyada ay soo korsatay sida hore kugu sheegay ilaahay u naxariisto. Marka waagi marka aan waxyaabaha qaar xataa waxa laga yaabo jiray waxaan dhihi jiray yani aabahay baa saan ii sameeyay waxyaabaha qaar aniga iska sheekooyin qaas iska sameeysan jiray yani oo aabahay aanan arkin inaan aabahay yani aan dhaho gabdhaha ugu faano aabahay baa saan ii sameeyay aabahay baa inta iga dhac marka gabdhaha aad u aaba jecel yihiin dabcan. Marka gabadha marka waxay tiri waxaan bilaabay aabahay inaan raadiyo hooyada aan dhaho aabahay aabahay maxay ugu diidaysaa aabahay kabacdi waxaan ogaaday tiri aabahay inuu magaalada ii dhow magaalada isla magaalada uu wax ka degan yahay aabahay aan la kulmay tiri marka aabahay la kulmay aad bay cidiisa ii xumeeyeen aabahayna aad yani ilama hadli jirin yani wuxuu dhihi jiray maxaa iga soo doontay hooyada aaway macnaha si xun ila dhaqmay ima soo dhaweyn bay tiri maadaama ay soo dhaweyn anigana ilmo yar baan ahaa codad baa iska kay gashay tiri mar damba ma raadsan bay tiri eedooyin ima soo raadin adeeryaal ima soo raadin qof isoo raadsada ma lahayn tiri markii aan weynaaday oo xoogaa aan la ekaaday 20kii aan soo gaaray
waxay tiri ayaa dhib igu dhacay tiri dhib markuu igu dhacay dad baa dhibaato ii geysteen waa sidaa qisada fahmi oo kaleeto waxay tiri dad baa dhibaato ii geysteen niman baa ifara xumeeyeen dhibaato badan baa la ii geystay wadanka marka waxay ahayd u malaynayaa wadamadan kamid ah Masar miya ma aqaan meelahaas ay sheegtay marka waxay tiri dhibaatadii markii la ii geystay oo waxa la ii geystay wadankii waxay tiri nimankii waa la soo qabtay waa la xiray tiri markii la xiray ilaah kuma darnaada hooyaday iyadoo ila macnaha oo nimankii la dagaalamaysa ayaa waxa bilaabatay dhaheen nimankii qabiilkiisa inta la raadsado nimanka waxay anaga igu qabiil ahaayeen isku qabiil ayaan ahayn oo dhanka familka aaba ayay ka soo jeedeen maadaama familka soo jeedeen markay waa la dhahay oo gabadhaas ina hebel waaye ina hebel markii la dhahay aabahay baa la raadiyay tiri aabahay markii la raadiyay aabahay diyadeedu qaatay tiri diyadeedu qaatay anigana dib ima soo fiirin nimankiina sidii uu ku sii daystay sidoo xal mariska ku qaatay anigana dib ima soo fiirin bay tiri hadda waxay tiri waan soo dhoofay tiri qurbahan imaaday markaan qurbihii aan imaadayna aniga aabahay maalintaas martaba waxaan go'aan ku gaaray inaanan magaciisa iyo meeluu ku nool yahay aanan dib dambe u sheegan marka waxay tiri markaan qurbihii laakiin soo galay oon dabcan inaan guursaday tiri waxaa la igu xujeeyay inaan ninkayga uu aaba iga doonto anigana maba rabin tiri aabay inaan xiriir la sameeyo walaal iga weyne ilama dhalan bay tiri oo wiilal hooyaday dhashaa ila jooga marka waxay tiri wiilasha hooyada dhasho kuma bixi karaan baa la yiri waxaa la yiri qof familka adeer kamid ah ama aaba kamid ah ayaa ku bixin kara anigana ma doonayay tiri in aabay la iga doono bahalka iga doono marka ninkii aan isguursan lahaa ayuu wuxuu leeyahay waxaan rabaa aabaha inaan kaa doontay aabaha ii sheeg anigana ma rabay tiri aabaha inaan u sheego marka ninkii dib buu isku hakiyay tiri asagoo u malaynaya aniga inaanan aaba qabin ama aan yani qof oo aan meher ku dhalan camal ila dhaqmayay tiri aaba malahid miyaa maxaa kugu dhacay cidiina aaway yaa tahay macnaha waxyaabo badan buu i weydiinay anigana ma rabay tiri wax ku saabsan aabahay inaan ka hadalo marnaba aniga waan ku iray tiri aniga hadda ii baahan tahay hooyaday u tag sheekhan loo wacaya waan isguursanayna wuxuu dhahay tiri hooyaday iyo aabahay way ii diideen bay tiri gabar aan aabaheed la aqoonin inay ii soo doonaan marka waa inaan aabaha la xiriiraa oo aabaha on kaa doontaa anigana ma doonayo tiri aabahayna aan bahalka ii sheeg oo la iga doono marka aniga arinta ku dhaadheeraanaynin gabadha aan waxaan dhihi lahaa waxay tiri dadka kale ii weydiiyay waxaan ku dhihi lahaa horta been ku sheegaye ana aabahay aqoon uma lahayn mana la soo korin saas ay tahayna markii la guursanaya aabahay la iga doonto waayo de waxaan xuquuq ilaahay siiye waayo anaga ma bedeli karno wax anaga aan ka bedeli karna ma ahan waxaan ku dhihi lahaa aniga iska wac waxba kaama dhibaysaa daarata dib dambe u xiriirinin aniga adig kuu taalaa laakiin waa hadda maadaama uu mustaqbalkaaga uu ku xiran yahay inaa iska wacatid ayay lagu qaataa ama qof adeena marka dhibaatada jirto dhibaatooyinkaas walaalayaalow soomaalida aad bay nimanka soomaaliyada aabaha dhanka aabaha aad bay ugu xun yihiin dhowr marna anoo nimanka ku dhagan way aragteen ma iskaga dhegani 95% nimanka soomaalida waa aabayaal xun waxa waaye haddana siiba weliba nimanka wiilasha uma xuma gabdhahay aad ugu xun yihiin maxay ka garabsadeen maxaa gabadhaadi waaye haddaa marka hore aada soo korsan oo yani aada xoog aada ku beelin oo hanti aada ku beelin maxaa u dhibaateynaysaa maxaa diyadeedii u qaadanaysaa ma amaan ilaahay siisid hooyaa korsatay hooyadeed maa u nabadgelisid macnaha ayadoo waa ku dhaleen waa ku dayaceen waa weynaatay waa ku dhibaateeyeen guurkaagii waxaa laga yaabaa gabadhaas hadda marka guursato xataa inaa guurkeeda lagu dhibaateeyo aabayaal noocaas waa iska buuxaan marka aabayaasha aada u dhib badan yihiin laakiin aniga maanta kuwii hore waaba tageenba oo anaga aabayaasheena laakiin kuwa dambe oo hadda soo koraya haddii aad arki jirteen gabar aada soo korsan intay kuu timaado oo ilaa kuma darnaada ay kuu baari noqoto oo aabba ay ku tidhaahdo oo ay wax ku tarto haddii aad kuwii hore iyagoo bahalka isheeg oo isdhahaya waa waalid dhahaya hadday kuu baari noqon jireen kuwaan saas ma ahan awlaadda hadda jirto la dhalaya saas ma ahan wallaahi intay kaa aarsadaan ay guriga hooyada kugu gubaayaan ku dhahay aabba iska dhaafe magacaaga iska dhaafe xataa waxaa laga yaabaabo inay meesha joogtidba ay kugu gubaan kuwan ilmahan sanadkan jiro waa kaa aarsanayaan waxaan arkay ilmo u doodaya maxaa wax kala jirta aniga ilmahayga marka iskuulka u daraya kuwa waxay yiraahdaan hooye he waa xanaaqsanahay maanta moodkayga waa iga qaldaya maxaa kugu dhac markaa tahay ku leeyahay xala markaa seexanahay I love you imaada dhihin يا I love you نده أنا أبياشين I love you نحن نده من إسكت عفوا وكجعله نحن نده إسكت عفوا وحي حق لوجو تلاقلا بينا مرسين با يعني يري I love you وكجعله يعني يري مرك المهان هذيك أنت كريسيت أو كده داشيد
bay haddana waxay kaa rabaan attention oo waxay kaa rabaan inaa mar walba tiraahdo waa ku jeclahay aaba waa ku jeclahay aaba saana ku ee kaa doonayaan ama hooy aad tiraahdo marka awlaadda sanadkan jirta haddii aad rajeynaysa intaa dhashid aad ka tagtid hadhow beri ay kuu baari noqdaan heehaata limaa toocadoonay inka tah ragow isdaba qabta kuwii hore waa tageene kuwa dambeeto walla wax magaciina sheegta iska dhaafee kadabkiinay gooynayaan kuwaan marka waxaa waaye waxaan kula hadlayaa odayaasha aabaha waxaan kula lahaa haddii aad bal ilaahay ku wajaha hadda dad koox yar waxaa jirta TikTok soo gasha oo video yar ay ka sameeyaan bal ila daawada idinkoo aniga ku dheereeranay videoyashan ila dada macnaha ayaga waxa laga yaabaa inay iska jilayaan laakiin waa exactly dadka markay nimankay naagta ay isqabaan siday ilmaha u korsadaan iyo markay ilmaha furaan siday oo la dhaqmaan reerka waa macnaha waxa is leedahay adiga jiljilitaan ay ka tahay iyo macnaha waxa laga yaabaa xataa inay u soo jeedinaan dadka wax ku dhaco laakiin waa waxa jiro oo saxiixa waay videoyashan bal wax yar ila daawada videoyashan هاي واضحنا يا هاي مع سلام هاي كبا عاقة وتن محاوي هاي ما انت 4 واي نو عادي واي هاي العبري وربنا هاي ابينا حق فري العقد قاتيا هيو باي هاي أبلغ بريغا ربنا هاي أبوك سوقاتي ده هذا هاي المي هذا إن صوتورة اسكسيب هاي أبو قارق ما نوغادي ما ويلكي بريادن كو قادي هاي أب معان $20 بأطورة يا أب إكستري أو 5 ستار ما شاني طبعا عرورتي دعوة عشان حاجة كده هاي باستو هاي ما يبريس نودي حاجي ساعة كده ميرتي أنا جي كده نقصي حاجي اسكراف حاجي أونلاين بقى نقول البياي هاي حاجي جمعة وناكسن 1 بيلو معلك وحودا وأكتا مو بريوال نصوب برناي هاي هذا وحكا مغلي أردنا وسوقات بح هاي أنا كسوق هذا هاي معلك وحودا يسكولك حفلة على قبنا درب سبسو حرتي العقن السي هاي وأكتا شيخ كستار يسو بري العقد ما هي أبي وعد أرضا هاي هلو بريسكول كان حفلة على قبل ربع معلك وحودا درب سبسو قلت العقن وصدر حورتا ويدس العقد ما يعني هاي إنه حدا هذا أنا العقد ما هي أبين ويجيستا إذن كان أنت الله هاي أبو هاي أب سوق التجين واحد كستوي يسبدلين نركح حفلة وحنا قضايا من هذا نراك شيء كأنه تلعبت سكولك بيشا من اللي موجودوا إن الله صبر يا بك بقى ساس معقول ما أنا وعائل ميجا أبودا هلا لقمان أنا هذيك الماء ووضع لنا كل يوم الماء اسكولك ولا صبر ما لعبته اسكولك سطور ولا صبر هذي لا صبر ما حقيقة لاني هذا كذي بس الماء كذي هذي كلمة يقصو وراجي الله يا بدناني ما كان سومالي ناقو ديفرن الموضة أنا مفرين حبيبي معاني إيدا سودو الماء وحا وربا در إيد معان 500 كوطورة هذه عرورت من يقفلنا ها معانا ويقفل انتاي 200 حقول إيد كين مجالك أدي لأنه أني سطورة يباشر هاي معان بدن وما سنتاي أبو الماء در إيدا أقباهنا سنة كورة حتى مئيديني ورادي عيال كابو هسكوي سودي سينا قدا الماء سيك نين وردوك وصوغدا $1 واي سي الماء أنا يكرتك بح الله رقص عليك مسامبا ilmahaygiisa horumar igu gaari lahayn ee wax igu baran lahayn dartooda waa inaa wax kasta u sameeyaa ilaa abuudino biilo uu diiday waraa bangiga jaagay walaal shaqaysii maxaa qaban kartaa wax kasta qaban karaa kaliya waxay ugu muhiimsan inaa shaqo hela saacruurteedu u fuudiyo okay gaari aan $5 hay asaaskii dunida iyo anigu dumar baana نمسانا كارو دقا غاريغا ما سان ku dhaqday ha walaal waa dhaqal lacagteedii la waxa ku sinan mal na kortay walaal saan ha ii gelin hooyo Soomaaliyeed baana caruur baa iga baan naga takawriye waxa taqaanid malaanay hooy maanta wax ma karinay maxaa ku dhac maxaa qaraw salaam ma aaday waa ku weyne hooyo aan intaan ka badan wax mid ii qaban kari boorsooyinkan xirta abiina idin diray hooyo waa ku buriyaan iska geefugeen wax kasta dartaada u sameeyeen hooy macaan inta anaan ii soo shaqeynaa wax barashada inta was ka dhaafo hooyo waa ku buriyaan هاي عروتي مسكين فوقينا anigu dumar baana waa soo daawateen you see markii odaga iyo kala tagaan iyo markay kala tagaan hooyadii aabaha markay iska joogaan aabaha ilmihii wax kastoo siinaa break hadday rabaan oo siinaa bas raac oo siinaa hadday qurbaha ku yeelaan waqtiga ku bixinaa yani ilmaha wadankii joogay waxay ka rabaan kaliya basraac inaad siisid biishid iskuulka ka bixisid laakiin kuwa wadanka jooga inta biishid oo wax walba ku beeshid ayaa waxa laga rabaa inaad cayaar geysid maanta hadaa cun ilmahayga maanta aan wado oo meel geeyo oo dalxiis geeyo oo meel geeyo still waxay ku dhahayaan aabaheen gormo imaanaya muxuu waqti noogu bixin lahayaa
aabow shaqo ku maqan yahay maxaa asaga markaas shaqo muu ku maqan yahay waqti nooma haya miya asaga balay garoonka maa nageeyo asaga meesha cayaarta maa nageeyo asaga maalina iskuulka nagama soo qaadayo miya asaga maalina saas nooma yeela miya su-aashaasaa lagu weydiinaa bal fiir macnihii aaday marka ilmaha wadankan sanadkan joogo waxa waaye korriimo kaliya kaama rabaan inaa wax ku beeshid kaama rabaan waxay rabaan xoogaaga inaa gelisid attention badan siisid waqti badan ku bixisid biishid nafaqaysid wax walbay kaa rabaan marka godkiina biyo in kugu soo galeen hadday arki jirteen gabar intaa iska dhasheen oo aada aqooninba hadday arki jirteen dib inii soo raadiso oo baara inii noqota gabdhaha sanadkan jiro ama dhalanaya waqtigan dhalanaya ha ka rajaynin gabar intaa hooyada ku furtay aada dib usoo fiirin inay dib kuu soo raadiso ama magacaaga soo sheegato ama ilaahay kuma darnaaday ama kuu baarin noqoto wallaahi gabadhan waxay tiri maba laga yaabay tiri magaca aabahay in laygu soo lifaaqo habarteeda ka tahay tiri xataa markii la imeherinayo ma doonaya tiri magaca aabahay in laygu soo lifaaqo heerkaasay gaarsiisan tahay waa ilmahan hadda sanadkan 21 gala waay marka godkiina biyo in kugu soo galeen 20 leen la marooyaa kuwa hadda dhalanaya maxaa u malaynaysaa waxay dhahaan dadka maandeeqay dadka ha isku simin nimanka isku mid ma ahan nimanka no aniga nimanka markaan aan tusaale ka qaadanayo waxaan kasoo qaataa axmed xuseen faarax cali cabdulaahi cabdirasaaq cabdiraxmaan hebelow aan kasoo qaataa waayo markaan 10 nin aan aqaano ama walaalahay ha ahaadaan ama waalid ha ii ahaadaan ama qaraaba ha ii ahaadaan markaan 10 nin aqaano hal nin maahan 9 kaleeta waa aaba xun marka maxaa ku diidaa marka 95% in aabayaal xun yihiin mana mideeda kaleeta adiga naagtii baa furtee ilmihii miyaad furtay ilmahaaga shalay say kugu baanaayeen kugu baahan yihiin saaxiib kuwii hore haddaad dayacday ay kusoo raadi jireen kuwan saas ma ahan ha ka yaabin inay kusoo raadeen ee hadda weli qabashaa leedihiin isbar qabta ayaa ina dhihi lahaa marka haddee asxaabay maanta waa xaraarada ay haysa ma fahanteen marka waa ilooba xataa inaan dhaho saskaraab ii dhaha marka gabadhan aada oo la qiirooday aadana waan oga marugooday wallaahi waa ka xumaaday marka sida ay yani heerkay gaarsiinsata waxay ayada iska keenta maaha waa wax la tuso waay yani qiyaas bal adiga qof aana shaqo kugu lahayn oo aad soo dhibaatootay waxay tiri hooyaday waxaan xasuustaa ay tiri hooyaday marka qaar way ooyin jirtay tiri intay cuntada nagu yaraato because may soo shaqaynay kelidii may dhiibay qurbaan joognaayay tiri aabaheena nin lacag la waayay tiri nin hanti ilaahay ku deeqa waayay tiri markii aan dhibaato la ii geystana diyadeydu qaatay tiri lacag uma baahnay tiri waa diyadeeda u qaadana muu aniga xataa isiiyay tiri wuxuu qaatay lacagtuu siiyay muu wax iga siiyay tiri waa exactel gabadhan hadda Nairobi ku dhibaataysan oo kala waay marka hore tan ma soo korsan hooyadii ku furay hadda markii wax loo qaban rabana oo la waxaynana oo nimanka la xirxirana asaga nimankii soo daayay gabadha diyadeedu qaatay you see hadhow beri waxa laga yaabaa inuu waay beri markay guursanaysa asaga laga doonana isbar qabta saan kale inama ahane ragga Soomaalida shame on you isku xishoodka alla inka qaada in dhaha karaan wax kale in ma dhihi karo ragga Soomaalida 95% aabayaal xunaatihiin waa ku fashilmateen aabaha dhanka aabaha waa ku fashilmateen isbar qabta waa isbar qaba kartiin intaas aago baxaya haddaan ugu cusubtaas iska raabtaa naga hilmaamin dhiirigelinay anagana noo tahay adigana free ku tahay like iyo share-tan waxa gaaga hadii aaba iyo jin aaba qabtina de gaarsi la sheer garay asxaabtada waa salaamantiin asxaabteeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh